مدبر وكاهل قلي مقالة برعو شيخ عبد الحق ودوية تشينكا iyo sixirka ayaa maanta soo gabagabeeyay waxaana shiikhu maanta lacag la'aan ka dhigay daaweyntii sixirka iyo jinka maadaama ay ahayd maalintii ugu dambeysay ee uu soo xidho rugtiisa uu ku dabiibo dadka madashaasi waxaa ka soo qayb galay isuduwaha wasaaradda diinta iyo awqaafta gobolka Togdheer xubno ka mid ah culimada gobolka Togdheer iyo boqolaal shacab ah oo u soo dabiib doontay xarunta Sheekh Rusheeye ugu horeynba waxaa halkaasi ka hadlay isuduwaha wasaaradda diinta iyo awqaafta gobolka Togdheer waxaana uu tilmaamay in la mahadiyay Sheekh Cabdilxaq hawsha uu hayo shacabka Sheekh Rusheeye wasaaradda diinta iyo awqaaftu way soo dhaweysay imtixaan bay ka qaatay gobollo badan buu ka soo shaqeeyay dhul badan buu ka soo shaqeeyay waa lagu mahadiyay caafimaad baa laga helay wax badan baa laga helay waxaan anigu odhan karaa waa marka minoo soo jabay oo malabkii saaran yahay oo caafimaadkii saaran yahay oo quraankii saaran yahay oo sakhiinnimadii ay saaran tahay ilaah baa laga helaa waxaan leeyahay waa addoon wanaagsan oo ilaahay inoo soo diray culumo iyo caamaba inaynu soo dhoweyno oo gacmaha isqabsanno oo dadkeenna wuxuu kala dagaalamaya jinka wuxuu kala dagaalamaya sixirka wuxuu kala dagaalamaya shaydaanka waxaa sidoo kale halkaasi ka hadlay culimo ka tirsan gobolka Togdheer oo kala soo qayb galay munaasabadda cuqaal iyo madax dhaqameed kale waxaanay bogaadin u soo jeediyeen Sheekh Cabdilxaq muddadii uu ka shaqeynayay magaalada Burco إلهي سبحانه وتعالى كتاب كيسا وكتل مامي إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا شيطان كوحيدية هي عدو بويدية واحد كردقتان عدو كردقتا وحتل مامي إلهي سبحانه وتعالى كتاب كيسا سوء نبي آدم يحوى الله اللية إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة dumarka waxaan leeyahay kelmad kaliya waxaan maqlayaa waa aabba u duceeya hooyo u duceeya ilmahan u duceeya in annagana nagu dartaan oo waa ragga iyagana aan u ducayno way ku wacnay lafteeda ummadeena meesha isku timi ducada loo duceeyo ilaahay oo aqbalo ilaahay wixii buka caafimaad siiyo ilaahay wixii buka caafimaad siiyo إلهي وحيد مكعافي ماذا سيو إلهي قلبك إنا حصفيو إلهي الشيخ ينوصل أحمرنا يا ودينوي وحي نقول دوينا يا ماشر الحمد لله إلهي نقول حريصنا يا أنا ودينوي مركا ولا لجزاكم الله خيرا قف كستا هرتا هني يستو وها خير كا إلهي أصول أحمرنا يا الشيخ الدين تا القرآن كا كريم كا إلهي تبارك وتعالى عين ماشر الحمد لله شفاي نقول سينيو qof walba niyeyso ilaahay kuwa quraankooda ku shifoodaha la inaga dhigo waxayaduna halkaasi ka hadashay Farax Cabdi Cumar oo ah gabadha yar waxaan uu kala soo dirsay makaanka waxaana ummadda islaamka ka codsatay in duco iyo kaalmo kala qayb qaataan la tacaalida xanuunkeeda bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Farax Cabdi Cumar waxaan ku dhashay gobolka Burco kuna soo barbaaray waxbarashadii dugsiga hoose waxaan ku soo qaatay Sheekh Yusuf Al-Kawnayn dugsiga sare ee Sheekh Ibrahim Secondary School waxaan galay maxadka caafimaadka Burco oo aan dhigtay cilmiga umulisanimada kaas oo aan ka qalin jabiyay 12kii bishii 12aad 2017 isla markii aan qalin jabiyay waxaan dareemay xaalad caafimaad darro Ilaahay waa wax walba awooda xanuunka isaga keena isagana qaada kadib waan iska soo noqday xanuunkayga ma ku samray gurigaygan iska joogay in dhakhtar dhalka dabadiisa laga qaado haddii wax lagu qabanayo ilaahayna u shimbir ii saaro marka koowaad inantii xanuunsanaysay ee aad arkayseen ilaahay subxaanahu wa tacaala ducadii sheekha iyo ducadii ummadda ilaahay ha u aqbalo Sheekh Cabdilxaq oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa duco u soo jeediyay ummadda islaamka ee la dhibaatoonaysa xanuunada jinka iyo sixirka qofka xanuunsanaya waa hooyo wayaan inanta xanuunsanaysana hooyo wado dhashay oo ilaashka keenaysa dhibka ugu badan maanta ciddu ku dhacay hooyooyinka wayaan inanta farqalkaas ay la baxday ilaahay miisaanka qiyaamo ha ugu daro
walaashan aan wax u sadaqaynay hadday hadli karto gacankaan u dhiibi doonnaa mikrofanka iyadana waa idiin ducaynaysaa ugu dambayn sheekh cabdilxaq ayaa soo kormeeray xarun cusub oo uu ka furan doono magaalada burco islamarkaasina noqon doonta rugtiisa uu ku cilaajin doono dadka la dhibaatoonaya xanuunada jinka iyo sixirka maxamed xasan diiriye maxamed jookar telefishinka caalamiga Ariel TV magaalada burco.